السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا dhamaantiin meel walba aad joogtaan. Waxa laga yaabaa in badan oo idinkan kamid ah waligii inay maqal sheekadaan. Miyaad maqasho waligaa siyaad bare madaxweynihii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ayaa mar isku dayay inuu xeelad awood ah inuu ku soo furto Nelson Mandela oo ahaayay xorriyadda ee Koonfur Afrika. Dad badan ayaa arintaasi waligood maqleen, laakiin aan laftigii waa markii ugu horeysay oo arintan aan maqlo kadib markaan daawaday waraysi uu bixiyay nin professor oo ku sugan dalka Koonfur Afrika kaas oo kamid ahaa dadkii Nelson Mandela aad ugu dhawaa sanadihii 80kii macnaha 90kii wixii ka horeeyay waa 65 ilaa 70kii ayuu aad ugu dhawaa. Sidoo Nelson Mandela waa inaad ogaataan inuu muddo dheer xabsi ku jiray una ahaa dad kamid ah tilmaamaha rasmiga ah ee lagu tilmaamo in uu u taagnaa xorriyadda dalka Koonfur Afrika. Maxamed Siyaad Barre wuxuu aad uga caraysnaa xariga Nelson Mandela wuxuu muddo dheer isku dayay in Afrikaanka kale ee xorriyadda haysta ay dagaalamaan oo dalka Koonfur Afrika ay weeraraan. Khudbad uu ka jeediyay qaramada midoobana waxay ahayd tii ugu adkeyd ee dadka madowga ah ee Koonfur Afrika xorriyaddooda lagu raadinayo oo madaxweyne Afrikaan u jeediyo. Siyaad Barre wuxuu yiri waxaan fiirsanaynaa dad nool oo bahla ay cunayaan. Waxaan fiirsanaynaa dad dalkoodii loogu yimid oo laga qabsaday haddana la dilayo haddana dhulka lagu aasayo haddana jaranjaro laga dhiganayo. Sidaa daraadeed Koonfur Afrika hadaysan xoroobin Afrika xor maahan, Soomaaliya xor maahan, dal xor ah ma jiro. waa inay Afrika dagaalantaa una dagaalantaa inay noqoto Koonfurta Afrika ama Koonfur Afrika dal xor ah oo dadkiisu u taliyaan. dad badan ayaa aad uga naxay arintaas iyadoo madaxda meesha fadhiday Afrikaanka ah ay aad ula yaabeen sida ninku uu cadaanka ula hadlayo. laakiin sheekada rasmiga ah ay maanta inay haynaa waa sheekada nin yiraahdo lag sanadkii 1987 iyadoo nidaamkii ka soo horjeeday midowga Koonfur Afrika oo si adag Koonfur Afrika gacanta ugu hayay. Nelson Mandela waxa uu ku xirnaa xabsi muddo ka badan 20 sano iyadoo fila Soomaaliya laga dareemayo walaac ku saabsan xaaladaas. laakiin professorku waxa uu dhahay waraysi uu dhawaan bixiyay ninkan wuxuu kamid ah dadka aad ugu dhawaa xorriyadda ee Nelson Mandela ee xorriyadda u dagaalami jiray. waxa uu sheegay xilli habeen ah oo lagu tilmaamay 6 saac ilaa 7 saac oo mugdi ah in hotel ku yaala Nairobi oo deganaa oo soo galay nin dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo aad u xanaaqsan. ninkaas waxa uu sameeyay inuu qaybtii reception-ka ama soo dhaweynta hotelka uu yimid oo u sheegay inuu u baahan yahay ninka South Africaanka ah ee professorka ee meesha degan. qolada hotelka waxay dhaheen maxaad ka socotaa? anigu wuxuu sheegay inuu ka socdo dawladda Soomaaliyeed oona wakiilka iyo madaxweynaha ninkaasna uu rabo inuu la kulmo. kadibna qolada hotelka ayaa gaarsiisay fariinta iyadoo waxa ka socda nin Soomaaliya ka socda ayaa ku jooga oo rabo inuu kula kulmo. professorka ayaa isla markiiba aqbalay isagoo u sheegay in kulan degdeg ah lagu qaban jiro oo qolkiisa kamid ah oo la fadhiisto. laakiin ninkii dhalinyarada ahaa marna lama hadlin professorkii. markuu guriga soo galay oo albaabkiisa looga furay hal hadal oo kale ayuu ku dhahay mudane fariin ayaa ka sidaa madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku wadaa tigid bari 7 saac diyaaradda Muqdisho ka baxaysa Nairobi ee Muqdisho tagaysa inaan raacdo ayaan ka rabaa. casuumadan ayaan kaaga wadaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya mudane Maxamed Siyaad Barre. wax kale oo aan ku sheegi kara iyo waxa uu kala hadli doono midna ma ogi. warqadan qabso kadibna irida ayuu ka baxay. ninkii professorka ahaa oo aad ula yaaban casuumaadda mid kamid ah libaaxyadii Afrika uu fidiyay ayaaba naxdin waa iskala waayay naxdin sidee ku dhacday in sidii lagu ogaaday inaad arintan ka shaqeynaysid. asagiiba waxa soo walwal iyo xaaladii 7 saac baad waaga ay bariyo yiri alaabtadan xirtay subaxdiina garoonka tagay tigidkii ana hore u watay tigidkii iyo casuumaadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya mudane Maxamed Siyaad Barre. ilaa hadda ma aqaan uu yiri ninkaas dhalinyarada waxa uu ahaa laakiin waxa laga yaabaa inuu safaaradda Soomaaliya uu ka shaqeynayay. isla markiiba diyaaraddan soo raacay markaan soo raacay Muqdisho aan ka soo degtay qaybta garoonka laba wiil oo dhalinyaro ah oo caata ayuu yiri ba garoonka soo istaagtay baabuur bay ugu qaadeen si degdeg ah ayaa madaxtooyada meesha madaxweynuhu joogay ayaa lagu gudbiyay. waxaa la yidhi dhaaneen oday ah oo sigaar cabaya oo kursiga ku fadhiya oo geed weyn dhax hoostiisa fadhiya oo ul yariisa wata oo meesha fadhiya. markii baabuur markii ay dejiyeen madaxweynuhu waa kaas wata
ay ugu yiraahdeen biyo aad baa u yaabo ninka maxay tahay madaxweynaha meesha fadhiyo nin iska fadhiyo sigaar iska cabayo kadibna waa u tagay uu salaamay diyaaradna kula soo dahday yiri xil hore inaad timaada ahayd kadibna wuxuu yiri waa shaqaysanay ka waran buu yiri maxaad shaqaha wadaan xaaladda xagee inay maraysaa waxaan rabaa inaan intiina xorriyadda u dagaalanta aan noloshiina kafaala qaado midda koowaad siyada samaqo dhaxraba taageero yar oo dhaqaale oo ah cuntadiina meelaha aad seexanaysaan iyo dalalka aad ku nooshiin ilaa iyo 120 qof oo ah kuwa maaragtay xorriyadda u dagaalamaya inaan horta balnoloshooda iyo caruurtooda iyo waxooda aan kafaala qaado lacagtuna waxay kugu soo gaari doontaa sidii anagu ugu qorsheyno maadaama dowladda Soomaaliya ay dowlad xooggan inay taageerto codkeeda ku taageerta iyo xaq u lahayd laakiin inay arrimo kale waxa ka dhalan kara faragelin dal kale moogta marka arrintaas wuxuu yiri lacagtuna sidii ku soo gaari doonta anaa ballan qaadi doona waxaana in ka rabaa yiri ninka ay soo diri doona in la shaqeysaan noloshiina anaa qaba aad baa wuxuu yiri u ooyi waana ku booday waxa yiri madaxweyne waa maasan tahay waxa dhan aan la socon la'anahay waa dhaqaale yarida mar hore ayaan dagaalami lahayn laakiin waxa jiray qorshe ka weyn oo siyaad ban meesha uu ka watay wuxuu rabay inuu ka shaqeeyo qorshe Afrika ay rabto inay ku soo furto Nelson Mandela kadibna wuxuu yiri ku soo dhawo Soomaaliya dalkan waa dalkaagi waxa laga rabaa inaad dadkaaga u dagaalantid inaad xorriyad soo celisid Mandela waa maxbuus laakiin fikirkiisa lama xirin haddii Afrika ay rabto inuu xorowdo wayna geesiyaasheeda la garab istaaga intaas ugu yiri kadib wuxuu jiray ayaa kacday laftiga waa isbedelay waxa yiri maanta weligeed ma arkin nin Afrikaan oo sidaan u hadlaya farxad baa isla kala waayay kadib wuxuu yiri inta ka dhiman hawsha dhiman wada shaqeynteena waa lagu dhameystiri doonaa waxaan ku dhameystiri doonaa ninka uu imaan doona marka orod waad fasaxanta ugu yiri waan dhaqo yiri labadii wiil baa qaadi jiray nin sirdoonka Soomaaliya ka tirsan oo meel maqaayad oo xeeb u dhow fadhiya meel xeeb aad iska fadhiya yiri baadiyay yiri ninka yiri hay soo dhow waaye xafiisyada iyo markii waa laga ilaalinayo ma arki karo wuxuu dhahay madaxweynaha xafiiskiisana ma arkin taliyahaas oo naga sugu dan xafiiskiisa midna ma arkin xafiisyada dhan waa laga ilaalinayo madaxweynaha geed hoose soo fadhiya oo tuwiri ninkan sirdoonkan meel xeeb ah soo fadhiya oo kursi wata markaan wuxuu yiri ugu yaraan 20 daqiiqo aan baa ka saarnay baa liigi yiri ma fahmi karo magaalada lagu dhex wareejiyay mase meel xeeb ah soo fadhiya kursi taalo oo xeebta iska leeyahay soo dhaw aad u faraxsanahay in Afrika oo aan shaqadeeda aad wax ka qabataan koonfur Afrika waxa u baahan inay xorowdo dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha go'aankiisa waa aragtay marka waxaan ka rabnaa inaad dadka hayaa dib ugu laabatid oo dadka xorriyad u dagaalamayay meel kasta ay joogaanba fariintii madaxweynuhu aad gaarsiisid shaqadan kaga baahan yahay dalkiina aad ku xoreynaysaa dowladda Soomaaliyeed ku garab taagan tahay inaad qabataan kadibna wuxuu ugu yiri waxaan kula shaqeyn doonta gabadh baa kula shaqeyn doonta yiri fadlan gabadhaas la shaqeey kadibna wuxuu yiri waan intaas wuxuu yiri gabadha la shaqeeya baan ka soo tagu yiri meel bal hotel aaminka leeyahay hotel soo waxay seexday aaminka seexday yiri subaxdii aroortii lagu yiri ay tibid diyaaradii baxaysa isaareen biiri hotelkii Nairobi aan ku laabtay Nairobi markaad ka soo degtay oo aan tagay yiri meeshii aan deganeen yarkii ninkii maalinta koow iimaanay baa yimid biya soo socda markaas wuxuu yiri lacag baan wadaa lacagtaas aan si lacagtii dowladda Soomaaliyeed ugu tala gashay baan wadaa marka waxa ka rabaa inaad gudoomiyihiin ama ninka madaxweyne qaabilsan aad ila kulansiisid ninkii baa wuxuu yiri meel kale dal kale u joogay baa u sheegay yiri ninkii baa yimid lacagtii dowladda Soomaaliyeed ay nagu tala gashay baan ku wareejiyay lacag fiican oo yiri markaas aan hal sano aan ku noolaa karno qof kasta baan ku wareejiyay lacagtii yiri markaa qaadanay iska weynay oo wuxuu ba energy baan galay yiri anaga laftiga nolosheena badbaaday dadka madowga ah ee koonfur Afrika dadka leeyahay xoog ku haysta cadaanka laftigeedu shirdoon adag bilahay biyo ay rabeen inay nagula dagaalamaan laakiin marka dhaqaalaha la hooyay difaacina waa adkaaday dad badan oo la dilay
kadibna wuxuu yiri muddo 6 bilood markii kasoo wareegtay dowladda Soomaaliyeed waxba xiriirkeeda dambe waa weynay dhax 6 bilood ka bacdi waxa soo laabtay yiri nin dhalinyaro ah wuxuu nagu yiri waxaan ka rabaa inaad shaqo qabatid shaqadaas oo ah 5 qof baan u baahanahay oo ah kuwa xorriyad ugu firfircoon inaan oo keentay 5 qof baa la keenay yiri Muqdisho loo soo qaaday tababar baa loo furay kadibna waxa loo sheegay inay adeegsadaan dad gudaha ku sugan ayna ka shaqeeyaan in la soo furto Nelson Mandela Siyaad Barre dhaqaale badan ayuu na siiyay hoteelada ayuu naga bixi jiray dadkii meel fiican buu dejiyay kadibna waxa la abuuray yiri qayb gudaha ka shaqeysa qaybtaas waxa uu talagay in Nelson Mandela inay soo furtaan marka dal kale oo Afrikaan ah ayaa Siyaad Barre asna kala shaqeynay oo Siyaad Barre adeegsanay labadii dal markii la isku daray marka wuxuu hadafku wuxuu ahaa dalkaas kale ee Afrikaanka ah markii haddii hawshiisa ay fashilanto inay Soomaaliya isla markiiba hawshii ay gasho muddo bilooyin ah oo fariimo qarsoodi wixii la isdhaafsanayay mararka qaar waxa la sheegaa in qorsho uu gaar heer laga fakaro in Nelson Mandela sidee lagu fududeyn karaa oo xabsi uu ka soo baxsado koox yar oo sirdoon ayaa la sheegay in daraasad ay sameeyeen meeshii jasiiradda uu ku xirnaa waxa la sheegay in la macaamilay dadkii jeelka uu ku jiray qaarkood gacanta ku hayay in lacag ahaan loo balan qaaday oo ay aqbaleen haddii hal xabad oo rasaas ay halis gelinayso noloshiisa ma aqbalayno Mandela waxa uu ahaa Afrika ninka ugu muhiimsan ee hawl kasta qaban kara ayuu yiri Siyaad Barre isagoo koox kamid ah South African oo Muqdisho la hadlayay marka qorshiyaas uu socday waxa la sheegay in gabar Soomaali ah ay qorshaha hogaamiye ka ahayd oo ay ka shaqeynaysay in Nelson Mandela la soo furto qorsho waxa uu ahaa fursad kaliya ee lagu jooji karay ama xoog iyo cadaadis lagu saari karay maamulkii madowga dhibaatada ku hayay ee Koonfur Afrika laakiin professor kasoo sii hadlay waxa uu yiri marka anaga laftigeena wuxuu yiri hawshii 5 qof ay qabanayeen waa naga qariyay ma noo sheegin laakiin mid kamid ah kadib markii aan la kulmay waxa yiri dowladda Soomaaliyeed maxay inay dirto waxay noo dirtay inaan soo furano Nelson Mandela aan ka shaqeyno qorshihii lagu soo furan lahaa laakiin qorshe weyn waxa uu ahaa in dowlad Afrikaan oo Koonfur Afrika daris la ay diyaarisay diyaarad haddii ninkan meesha laga soo furto habeenkaas in isla markiiba diyaaradda lagu qaado Nelson Mandela qorshe wuxuu ahaa in Muqdisho la dejiyo arinta ugu weyn la yaab kale waxa kamid ah dowladda Soomaaliya ugu fikiraysay in Nelson Mandela ay Muqdisho dejiso oo Muqdisho oo nolol ku haysto inta xorriyadda ay socoto marka Siyaad Barre wuxuu aad iyo aad ugu adkaa in Nelson Mandela awood ugu soo furto marka ninka wuxuu dhahayaa suurtagal maahan buu yiri dadkii uu ka soo jeeday halyeeyga Afrika Maxamed Siyaad Barre ee ku fakarayay inuu Nelson Mandela awood ku soo furto Misir doon iyo dhaqaalaba ina dadkiisa leeyno wax marka uu ka hadlayay Soomaalida dhibaatada lagu hayo ee dilka dhaca arintaas dhan buu ka hadlayay isagoo sheegay inay u baahan tahay Soomaaliya inay dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Koonfur Afrika ay ka wada hadlaan arrimaha ku saabsan dilalka oo habaas inkastoo 1990kii Nelson Mandela markii la soo daayay oo Nelson Mandela xabsi laga soo daayay Soomaaliya waxay ku jirta xaalad adag oo siyaasadeed waxaana yaraa burburkii Soomaaliya ayaa bilow ahaa sida darteed labada hogaamiye ma aysan isku helin fursad rasmi oo ay ku kulmaan iyagoo xilal ka haya qisadan waxaa lagu xasuustay in professorku uu ku sheegay in haddii cadaadiska Soomaaliya midka sirdoon ee Soomaaliya oo dadka cadaanka ay ogaayeen aan la heli lahayn Nelson Mandela marna lama soo daayin Koonfur Afrika xor ma noqotee xisbigii ANC ee xorriyaddana ma dhaqaaqeen waxa kaliya wuxuu yiri aan ku dhaqaaqeen waxay ahayd dhaqaalaha dowladda Soomaaliyeed in la siinaysa ee ku saabsanaa inaan hoteelada degno meesha aan joogno 120 qof oo South African ay dowladda Soomaaliya biil siinaysa bilaa iyagoo rabtay in ay noolaadaan oo xorriyadda iyo dhaqaaqooda iyagoo xor ah ay sii wataan si maaragtay aan lacag kale lagu laaluushin arrin weyn bay ahayd wuxuuna sheegay inuu buug uu ku qori doono ku saabsan dhawaan South Africa iyo Soomaaliya
wuxuuna sheegay buugaas ugu magac dari doono qorshihii Soomaaliya rabtay inay kusoo furato Nelson Mandela. wuxuu sheegay inay sheegi doonaan oo waa arki doonaa buuggiisa markuu soo baxo. laakiin arrinta la yaab leh waxaa kamid ah gabadha Soomaaliyeed arrintaas loo xilsaaray inaysan weli aan la ogeyn. waxaan rajeynayaa gabadhaas in maalin ay hadli doonto haddii ay nooshahay, ayna ka hadli doonto sida lagu xilsaaray iyadoo gabar ah in koox soo Afrikaan ay tababarto si ay usoo furtaan Nelson Mandela. aad u mahadsantihiin. waxaan soo wadnaa qosooyin kale oo qarsoon oo weli laga hadlin. fadlan nasoo raaca, subscribe, like, share, commentiga si asxaabta kale ugu gaaro. mahadsanidin.